waxa kaloon xasuustaa sideetan iyo shantii haddaan sideetan iyo afartii ahayn wiil dhallinyara oo ardaya oo neersanka barta isbitaalkii digfeer ayaa mar uu waxbarashadii ku yara caajisay buu xaggan tarabuunka muqdisho u soo yara kacay digfeer iyo tarabuunkana waxoogaa bay isu jiraan intaanu iftiinkii tarabuunka soo gaadhin baa wuxuu arkay naag cadar aada isugu buufisay deedna wuu cilaaqay iyana way la qaaday waa laysa soo raacay waagaas ninkii garanaya dumarku waxay xidhan jireen kaba la yidhaha qaraafiico waxay ahaayeen kaba xagga hoose qori ah way sanqari jireen oo markay laamida lagu socdo qararac bay odhan jireenoo xagga hoose qori ahayd walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min siinatihinna si maxaanku idhaahdaa loo eego tallaabadooda iyo akshanka ayaa shaydaanku wuxuu hindisay inuu kaba qorya ah oo biniaadmiga usoo sameeyo marka intii madowga la soo marayey sanqadha wuu maqlayay wiilku laakiin waxaa islahaa kabihii qaraafiicaha ahaa bay xidhan tahay tarabuunkii marka lagu yimaado tarabuunka waddaa hormarta laydh baa ku xidhan siday u sheekaysanayeen buu hoosta lugaheedii eegay deedna wuxuu arkay inay leedahay qoob dameeraad ardaygii wuu sasay waa cararay wuxuu u cararay jihada iyo waqooyiga warshadda caanaha ayaa halkaa kaga soo jeeda inanku waa qayliye waa sasay waa orday koonaha warshadda caanaha oday baa fadhiya garweyn iska fadhiya alla adeer iga qabo buu ku yidhi markaasuu ku yidhi war maxaad aragtay alla adeer naag qoob dameeraadla baan arkay odaygii show isaga laftiisa isna jina deedna isna intuu qoobkii u soo saaray uu yidhi makanoo kalu ahaa intuu halkaa laabta kaga dhuftay ayuu ku gujiyey oo yidhi cagtanoo kaley lahay yarkii yaraa koomuu galay meeshuna waa dad badani ma socdaan waa meel cidlaa oo halkan maxaanku idhaha isbitaalkii militariga ka xiga halkan warshaddii caanoo laga rawxay baa ka xigta waa meel cidlaa habeenkii oo dhan halkiibuu yarkii uu koomo ku jiray waagii markuu beriyey ayaa ilmihii oo meesha jiifa oo koomo ku jira baa laga qaaday tan haddaba iyadu waa tan had iyo jeer dadka xeebaha ay koocada u yaqaaniin tan iyagu aynaan saclaad innagu soomaali ahaan waxayna kooca ayaynu dhahnaayo inta badan dadka berbera ku nool yaalaa markay habeenkii xeebaha ay u baxaan way arkaan marka middan koocada la yidhaahdo ama noocan dumarka ahee u soo banbaxa dadka waxay yidhaahdaan dadkan cilmi baadhista ku sameeya jinka xayawaankan la yidhaahdo addi'bu oo inagu u naqaano af carabi ahaan waraabaha ama dabciga waxa ilaahay awood u siiyey inuu arki karo jinka marka noocan oo kale way is arkaan waanu cunaa waraabuhu jinka noocan oo kale ah isagaa la dagaalamo uu cunaa waxaa jira bay yidhaahdeen qaar jinka ka mid ah oo badaha dhexdooda ka ugaadhsada makhluuqaadka bini aadmiga waa kanaynu inagu u naqaano qaraasina waa budhcadbadeedda marka waxaa jira jin budhcadbadeed ah oo badaha dhexdooda ayay ka qaraabtaan waa wax quwad weyn midabkiisuna wuxuu u egyahay midabka dhagaxaanta badda ee madmadow wuxuuna isku dayaa in maraakiibta yaryar oo kale uu qallibo oo dadka la tuuro ayuu isku dayaa